بريجا روح لو نجري بيل بحرادن إما كان بيل بحيرانسن تاهرنا حق بيقول هيد إنه كرسي قاعدوا تنحق بيقول أنت سامع وسيرك حنانada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sul Maxamed ayaa maanta kuna saacado badan qaatay gudida deegaanka khayraadka dabiiciga kalluumaysiga iyo wax soo saarka ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaas oo saacado badan qaatay isla markaana warbaahintu dabajoog ka ahayd markuu soo ilaaday waxa warfidiyeenka waxyaabi ay diiradda ku saareen uga warbixiyay gudoomiyaha gudidaasi Mubaarak Muuse Dhalaal anagoo gudanayna sharciga dastuurka Soomaaliland inaan wasaaradaha ay la shaqeyso gudideedu inaan ka wareysano heerka ay u marayaan qorshooyinkooda waxa la qabsoomay sanadkii hore waxyaalaha sanadkan u qorsheysan waxa la qabsoomay waxyaalahan u qabsoomeen ayaan runtii wasaaradda weydiinay wasaaraddu way noo warantay runtii arrimahaas oo ku saabsan xagga xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo qorshayaasha wasaaradda u degan sanadkan aad baan uga wareysanay wasaaraddu warbixin waafiyayna siisay insha Allah taala waxaanu rajaynaynaa hadii la yiraahdo inaanu mar labaad iyo mar saddexaadna kulanno san hadhowto mashaariicdaas aragnay sidii qabsoomeen iyo wixii ka socda waxaan kala ka wareysanay qorshihii dikadda mayd xaq uu marayo goorta dikaddu dhamaanayso hadii la yiraahdo iyo shaybaadhyada xoolaha ee wadanka ka jira iminka maxay wasaaraddu arrimaha ka qabatay imise xoolaha lagu talaalay wadanka maxaa u dhameystiran iyo mashaariicda kale ah dhismayaasha ku saabsan xeeraha lagu talagalay cawska xagee laga fuliyay maxay wasaaraddu ka fulisay maxaa qorsheysan maxaa hirgalay arrimahaas oo far badan maanta runtii iska wareysanay wasiirka iyo gudidooda ku mahadsan yihiin warbixinta ay naga siiyeen xagga wax u marayaan wixii ka hor yimi iyo wixii qabsoomay way noo sheegeen geestiisa isna waxa kulankan ka warbixiyay waxyaabi ay ku jeexjeexeen wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sul Maxamed muddo dheer baan wada joognay maadaama aan muddo dheer kala maqnayn galuuna cusbaa su'aaluna waa badnaayeen jawaabuna waa ka sii badnaayeen waana isla wada fahamnay wixii ayna weydiiyeen wax hore tagay sanadkii hore ah wax sanadkan cusub noo qorsheysan wixii jirayba waan isla garanay waxyaabaha culays kala saarayna waa xoolaha iyo kalluunka sida gudoomiyadu idin sheegay xoolaha iyo kalluunka wixii ku saabsanaa ama mashaariic socota ha noqoto ama kuwa noo qorsheysan ha noqoto ama wixii dhibay jira ha noqoto ama wixii fulay ha noqoto waan isla wada garanay imaka waxa inoo dheer xoolaha iyo dadkaba abaartii baa haysa annaku wasaaradahan wanakii hore idinku yeedhnay oo saxaafadda gelinay abaarta gurmadkii caafimaadka ee xoolaha oo shilin iyo caali wax la mid ah hayaan maadaama nafaqada xooluhu hoos u dhacday markii doogu yaraaday ama cawsku iyo biyuhu ayaanu diray waxaanu diray dhowr iyo 30 tiim oo dalka oo dhan gudihiisa ah ilaa xuduudaha waana hawl galeenoo imka wiigan way shaqeynayeen horta waxaad sheegtay waxyaabo badan aan waxba ka jirin ninka mikrafoon haystay saxaafad joogaana waxa uu wacan in wax xaqiiqo ah ku hadlo iska dhamaa hadal dhalinyarada waata saxaafaduna ethics bay leedahay waxa halkan aniga igu weheliyay oo been ka sheegtay gudoomiyiga maragay halkan la taagan agaasimaashaydii waxa oo hogaaminayo agaasimigood taas horta waa mid kugu beenooday mid labaadna way kugu beenoodo inaan wadani ahay kulmiyana la shaqeeyo taasu hadal nin weyn leeyahay bariga hore waxa loo jiray beel baa ima kana beel baa xayraansan taa horena xaq bay u lahayd inay kursiga gaadho tan xaq bay u leedahay intaas warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub
abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed